saxaafadeedkan shacabka Soomaaliyeed kula wadaago si kooban xaaladda dhaqaalaha dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo maalmahan si qaldan saxaafadda loola wadaagay warbixin qaldan oo ku saabsan horumarka arrimaha dhaqaalaha laga gaaray dalka Soomaaliya qaasatan sanadihii la soo dhaafay. Soomaaliya 4 sano la soo dhaafay waxa Ilaahay ku maneystay iyada oo ay duruufo badan ay jiraan in haddana guulo laga gaaro qaybo badan oo dhaqaalaha dalka ku saabsan. Waxaa guul laga gaaray in dhanka faqriga ama saboolnimada dhimitaankeeda 5 sano ama 6 sano la soo dhaafay hoos u dhac weyn lagu suubiyay ayada oo Soomaaliya markii hore faqrigeeda ay ahayd 69% haddana ay tahay 54%. hoos u dhacaas oo ay qayb weyn ka ahayd shaqooyinka waaweyn ee dowladnimada Soomaaliya ay soo martay ayadoo la dhisayay dhaqaalaha iyo horumarka dalka. Waxaan xukuumadda dan qaran ay sanadkii hore dejisay qorshihii isbeddelka qaranka oo qorshe aad u ballaaran oo 4 tiir oo horumarineed oo arrimaha horumarinta bulshada iyo dhaqaalaha iyo qaybta governance-ga iyo climate-kaba xoogga saaraya in dalkeena laga hormariyo. Waxaan ku guuleysanay 4 sano la soo dhaafay in horumar laga gaaray arrimaha maalgashiga shisheeye oo 2021 600 oo milyan ayaa dalkeena maalgelinta imaanaysay. sanadkii hadda la soo dhaafo 2025 waxa ay gaartay 834 oo sanadkii 2025 9% maalgashiga dalka oo kor u kacay. maalgashigaas kor u kacay hal sano gudaheed waxaan rajaynaynaa sanadkan ama inuu u dhawaado ama inuu gaaro $1 billion 2026 markuu noo dhamaanayo. dhanka dakhliga iyo revenue-ga dalkeena sanadihii la soo dhaafay wuxuu gaaray $404 milyan sanadkii 2025 sanadkan aan ku jirnana waxaan rajaynaynaa $440 milyan waa dakhliga iyo revenue-ga dalka gudihiisa laga soo saaray ayada oo aan weli dalka dhammaystiran dakhliga aan laga soo aroorin karin. waxaan ka hadlayaa waa muddo 5 sano gudahooda waxaa laga soo bilaabay 210 milyan maanta wuxuu marayaa 404 milyan dabayaaqada sanadkana wuxuu gaarayaa sida qorshaha dawladda ay tahay 440 milyan. maalmihii la soo dhaafay ama maalmihii hadda ugu dambeeyay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu si aan sal iyo raad toona lahayn shacabka Soomaaliyeed ugu warbixiyay in dhaqaalaha Soomaaliya uu hoos u dhacay isla markaana heerka faqriga uu kordhay isagoo sheegashadiisa aan waxba ka jirin ku saleeyay warbixin xaaladda dhaqaalaha Soomaaliya ay soo saareen bangiga adduunka. wuxuu si qaldan u turjumay warbixin si sax ah ama bogaadin ah qaybaha guulaha Soomaaliya arrimaha dhaqaalaha lagaga soo saaray World Bank-ga ayaa nambaradii wuxuu si qaldan ugu turjumay isaga oo si niyad jab ah shacabka Soomaaliyeed ula sheergareeyay in warbixintaas dhaqaalaha Soomaaliya ay si qaldan ugu wargeliyo si uu muwaadin walba oo Soomaaliyeed oo aqoon leh uu ka akhrin karo xogta dhaqaale ee ku jirta warbixintaas. waxay muujinaysaa warbixin gabi ahaan ka duwan sheegashada xilkastarrada ah ee ra'iisul wasaarihii hore uu faafiyey. marnaba shacabka Soomaaliyeed kama mudna mas'uul gaaray heer ra'iisul wasaare in uu shacabka ku marin habaabiyo been abuur intaas la eg taas oo shacabka ku abuurayso niyad jab qaran jab. ugu horeyn ra'iisul wasaarihii hore mudane Xasan Cali Khayre wuxuu si qaldan u fasiray warbixinta bangiga adduunka in ay sheegtay dhaqaalaha dalka uu ku yimid hoos u dhac gaaraya 3% isaga oo weliba adeegsanaya ereyga afka qalaad lagu yiraahdo contraction oo la mid ah warbixinta ay sheegtay in dhaqaalaha dalku uu 3% oo minus eber ka hoos maray taas oo marin habaabisay si qayaxana u sheegtay isla markaana uu ka duwan yahay xogta bangiga adduunka oo cadaynaysa in dhaqaalaheena uusan hoos u dhicin balse uu kabcay 3.1 iyada oo weli dalkeena la tacaaliso ama la tacaalayo xaalado abaaro
aafooyinka isbeddelka cimilada iyo saameynta ka dhalatay isbeddelka weyn ee dunida ka socota oo ah dagaalada iyo bariga Afrika iyo marin biyoodka iyo culeysyada ka jiro ayaan weli waxaan ku guuleysanay sanadkii la soo dhaafay 3% in uu kobaceena kor u aaday sidoo kale wax soo saarka guud ee dalka wuxuu gaaray 13.2 bilyan oo dollar oo ah heerkii ugu sareeyay kaas oo marka la barbar dhigo halkii uu ra'iisul wasaaraha hore Khayre dhaqaalaha dalka uu kaga tagay oo markaas ahayd 8.7 bilyan taasi oo ka turjumaysa kobac dhaqaale oo mug leh oo uu Khayre ama ra'iisul wasaarihii horeba iska indha tiray dhanka kale intii u dhaxaysay sanadkii 2022 iyo 2025 dhaqaalaheena wuxuu kobcay celcelis ahaan 3.5% taas oo la siman kobaca dhaqaale ee dalalka qaaradda Afrika ee ka hooseeya saxaraha ama waxa sub-Saharan Africa countries kala isku dhaho oo ahaa 3.6 haddaba aan isbarbar dhigno halka uu kobaca dhaqaalaha taagnaa xilligii mudane Khayre uu ahaa ra'iisul wasaaraha intii u dhaxaysay 2017 iyo 2021 muddadaas uu dhaqaalaha kobcay celcelis ahaan 2.2 sanadkii sida ay qoreen hay'adaha maaliyadda adduunka shacabka Soomaaliyeed waxaa halkaas ku cad in ay xukuumadda dan qaran ay horumar weyn ka sameysay kobaca dib u habeynta dhaqaalaha dalka ra'iisul wasaarihii hore mudane Khayre wuxuu si khaldan u sheegay in warbixinta ay sheegtay in awoodda wax iibsiga shacabka Soomaaliyeed ay hoos u dhacday 5.7 waxaana xog ka duwan warbixinta bangiga taas oo aan meelna kaga xusneen warbixinta uu refer gareynaya ama uu tixraacay ra'iisul wasaare Khayre warbixintaas uu sheegay meel ay kaga qoran tahay malaha warbixinta saxda ah waxa ay cadeynaysaa in celcelis dakhliga qofka muwaadinka Soomaaliyeed uu ahaa 640 milyan sanadkii 2021 halka uu gaaray 793 dollar sanadkii 2025 kaas oo ka dhigan in dakhliga qofkii uu kordhay 24% tani waxayna tusaysaa in dhaqaalaheena uu kobcay kobac weyn sameeyay marka lala barbar dhigo halkii hoose uu joogay muddadii uu mudane Xasan Cali Khayre dalka ra'iisul wasaaraha uu ka ahaa waxaa xaqiiq ah in dalkeena uu ka soo kabanayo culeysyo oo ay shaqo culusna inoo taalo dowlad ahaan ama qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah balse waxaa maragma doonto ah in dhaqaalaha horu kac sameeyay dakhliga muwaadinkana uu kordhay sida ay marqaati kacayaan xogaha dhaqaalaha ay qoreen hay'adaha kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa kale caalamiga sida IMF-ta iyo World Bank-ga markaad fiirisid dhanka amaahyada bangiyada ganacsiga gaarka loo leeyahay waxaa sidoo kale nasiib darro ah in ra'iisul wasaare hore mudane Khayre oo asagana si qaldan xog ahaan ugu warbixiyay inuu sheegay inay baaba'een fursadihii ay bangiyada amaahda ku sii jireen ganacsiga gaarka loo leeyahay waxa la dhahaa credit to private sector isaga oo u fasiray warbixintaas in fursadaha amaahda ay u dhacday 15% taasi oo ay marin habaabin iyo xog aan xaqiiqda ku salaysnayn ahaa sida xaqiiqdu ay tahay kuna cad warbixinta bangiga dhexe ee Soomaaliya lacagaha amaahda ay ganacsiga gaarka loo leeyahay ay ka helaan bangiyada waxay sanadkii 2021 ahayd 222 milyan dhibic 7 halka ay maanta gaarsiisan tahay 620 milyan sanadka 2026 taas oo ka dhigan korar gaaraya 179 waa korar la eg ganacsiga gaarka loo leeyahay uu maanta helayo in la eg 3 ujibaar heerkii oo ra'iisul wasaare Khayre uu ku ogaa waa 222 milyan maantana waxa aan ka hadlayno waa 620 milyan waad arki kartaan farqiga ku dhaxeeya waa 3 ujibaar intaas waxaa dheer hantida guud ee bangiyada dalka oo ahayd
1.2 bilyan oo dollar sanadkii 2021 ayaa maanta gaaraysa 2.3 bilyan, taas oo u dhiganta korar boqolkiiba 91. taasi oo laga garan karo in bangiyada dalka ay kobceen, karaankooda iyo kalsoonidooduna ay ballaaratay. ganacsatadeennu maanta waxay haystaan fursado maaliyadeed oo ka badan kuwii hore, ayagoo awooda inay ka faa'iidaystaan fursadaha ganacsi oo markii hore ka baxsanaa awooddooda, halka nidaamka bangiyadeennuna uu ballaartay heer uu maanta awoodi karo inuu noqdo tiir dhexaad u noqon kara dhaqaale intii hore ka baaxad weyn. nasiib darase, ra'iisul wasaarihii hore Khayre wuxuu doortay in uu suurad xumeeyo horumarka laga sameeyey dhaqaalaha dalka, dadaalada ganacsatada Soomaaliyeed, taasi oo ah xilkas darro qof mas'uul ah oo dalkan soo xukumay laga filan karin. markaad fiirisid dhanka sicirka, arrimaha cuntada iyo wax dhoofinta oo aad ka fiirisid, Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu sicir bararka yar marka loo eego dalalka xubnaha ka ah bulshada bariga ama East African Community. sanadkii la soo dhaafay, sida ay sheegtay warbaahinta bangiga adduunka, sicir bararka wuxuu ahaa 3.7%, taas oo ka hooseysa inta badan dalalka ku midaysan bulshada Afrika. ra'iisul wasaarihii hore mudane Khayre wuxuu si aan xilkasnimo ahayn u dafiray dadaalka dowladda ay ku xakamaysay sicir bararka, wuxuuna si qaldan u fasiray odoros sicir barar oo aan rasmi ahayn, kaasi oo shaadaashiisu ku qotomto isbedelada dagaalka bariga dhexe iyo sidoo kale xirnaanshaha marinka Hormuus, si uu niyad jab shacabka Soomaaliyeed ugu suubiya una fool xumeeyo waxqabadka weyn ee xukuumadda dan qaran ay ka sameynayso. sidoo kale wuxuu dhaliil ka dhigay inay hoos u dhac ku dhacay soo dhoofishada ama soo dhoofsashada cunnada 2.5%, taas oo ah runtii horumar ku yimid korarka wax soo saarka beeraleyda Soomaaliyeed, oo ay ugu wacan tahay horumarka ay dowladda ka gaartay dhanka amniga iyo isku furfurnaanshaha miyiga iyo magaalada meelihii khawaarijta laga saaray. wax soo saarka beeraha wuxuu gu'ii 2025 gaaray 129,400 metrik tan, oo u dhiganta korar 14%, taasi oo marka loo eego celcelis ahaan wax soo saarka sanadlaha ah ee beeraleyda inta u dhaxaysa sanadkii 1995 iyo 2024. waana tilaabo aad iyo aad dhiirigelin iyo guul u ah beeraleyda Soomaaliyeed. haddii heerka wax soo saarka beeraleyda uu xawligan ku sii socdo ilaa ilaahayna naga yasiro aafooyinka cimilada sida abaaraha iyo fatahaadaha, waxaan rajaynaynaa in beeraleydu ay dalkeenna u horseedi doonto isku filnaansho cunto iyo in laga maarmo in aan cunooyinka asaasiga ah soo dhoofsanno. dowladduna waxay beeraleyda la garab taagan tahay mar kasto taageero dhinac walba ah. dhanka marka laga fiiriyo horumarka arrimaha dakhliga gudaha amaba domestic revenue-ga dowladda, sida aad wada ogtihiinba, sare u qaadista dakhliga gudaha waxay ka mid ahayd qorshihii hortabinta u lahaa xukuumadda dan qaran, taasi oo hogaaminayay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. waxaa alla mahadiis ah in horumar baaxad leh laga sameeyey. waxaa maanta ku faraxsanahay inaan shacabka Soomaaliyeed la wadaago in dakhligeenna gudaha isbeddel weyn lagu suubiya, iyada oo laga soo qaaday markay ahayd sanadka 2020 211 milyan ayuu ahaa, haddana wuxuu gaaray ama 2025 oo sanadkii hore ah 404 milyan ayuu gaaray. waxaana sanadkan oo hadda aan ku jirno oo aan bishii 8aad dhamaanayso la filayaa inuu gaaro 440 milyan. waa qiyaasi kartaa 211 milyan 2020 iyo 440 masaafada ay xukuumaddan dadaalkeeda ay soo gaarsiisay inuu kordhay dakhliga gudaha 91%. taas ayaa markhaati waxa u ah shaqada, dadaalka iyo howlaha horumarineed ee dalka ka socda. horumarkan marka wuxuu ka yimid dadaal aan joogsi lahayn
oo lagu xoojinayo maamulka iyo hufnaanta nidaamka canshuur ururinta iyo ballaarinta ilaha dakhliga si loo yareeyo ku tiirsanaanta maalgelinta ka timaada dibadda. waxaana hadda qorshaha xukuumadda ah in dalkeenna ku filnaado bixinta kharashaadka ku baxa howlaha la xiriira mas-uuliyadkeena qaran. markaa ka fiirisid dhanka horumarinta dhaqaalaha, shacabkeenna Soomaaliyeed waa shacab wacyi leh oo kala saari kara xaqiiq iyo marin habaabin. waxaan shacabka ku bogaadinayaa taageerada mar kasta ee la garab taagan yihiin dowladdooda. xukuumadda dan qaranna waxaa ka go'an inay u adeegto shacabka Soomaaliyeed si hufnaan iyo hagar la'aan ah. ugu dambeyn, dhammaan xogaha lagu xusay warbixinta uu sida qaldan u tix raacay ra'iisul wasaarihii hore, ra'iisul wasaare Khayre, warbixintaas dhaqaalaha bangiga adduunka uu soo saaray bishii May 2026 waxay tilmaamayaan horumar ballaaran oo laga gaaray dhanka dhaqaalaha oo runtii wax lagu farxo ah. waxaase mas-uuliyad darro weyn ah in muwaadin Soomaaliyeed oo gaaray heerka ra'iisul wasaare nimo uu shacabka Soomaaliyeed la hor yimaado xog marin habaabin ah si guulaha dalkiisa iyo dadkiisaba ugu rogo hoog, burbur iyo baaba, asiga oo iska dhaadhiciyey inuu suurad xumeeyo dalkiisa, dadkiisa uu ku gaaro suuro xumayntaas inuu ku gaaro dana shaqsi iyo hadalhayn warbaahineed oo raqiis ah. waxaan rabaa marka nuqdada ugu dambeeya inaan kusoo koobo ra'iisul wasaare Khayre haddii hufnaan dhaqaale iyo financial transparency uu ka hadlayo, anigu waxaan ahay guddoomiyihii guddiga dhaqaalaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya muddadii ra'iisul wasaare Khayre uu ahaa ra'iisul wasaaraha. xisaab xirradii sanad kasta xukuumadda laga rabay 3 sano ama 4 sano dowladdii lasoo dhaafay ee dowladdii ka horreysay, 1 sano ayaa guddoomiyihii markaas uu joogay Muudey ayuu ahaa. waxaa si adag oo khalad lagu xiray ayada oo buuq ka taagan yahay. 3 sano ama 4 sano ka dambeysay xisaab xir muusan samaynin. xukuumaddan dan qaran hadda annaga waxaa noo dhammaaday 4 sano. waxaan hadda gudbinay oo baarlamaanka yeelay xisaab xirkii afaraad ee sanadkii afaraad ee 2025 sanadihii ka horreeyna mid kasta waqtigii loogu talagalay ee sharci ahaanta in xisaab xir la suubi ahaa ayaan suubinaynay. waxaan rabnaa marka horumarka dalkeenna ka socdo qaybaha kala duwan, xag amni, xagga horumar dhaqaale, wax soo saarka markaa fiirisid, ayada oo ay Soomaaliya weli la dacaala dhicayso aafooyinka isbeddelka cimilada ama abaaraha amaba fatahaadka, ayaa weliba dadka Soomaaliyeed resiliensigooda iyo adkeensigooda iyo dadaalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxdeeda khaasatan madaxweyne xasan sheekh iyo ra'iisul wasaare xamse waxay mar kasta gaarayaan go'aano dalka amnigiisa iyo dhaqaalihiisa iyo qayb kastoo horumarineed lagu horumarinayo. isbuucii la soo dhaafay artikalka economist uu soo qoray amaba joornaalka ugu afdheer oo adduunka caalamiga ah xagga amniga guulaha laga gaaray, xagga shaqo abuurka iyo dhaqaalaha guulaha laga gaaray ma ahan waxa aan ka hadlayno wax annaga aan qorno ma aha. joornaalada caalamiga ah ee sida economist ayaa waxay qirayaan Soomaaliya indhihii hore inaan lagu fiirin karin oo indho cusub in lagu fiiriyo u baahan. waxaa maalin kasta aragtaan dad dalxiisayaal oo dalkeena u imaanayo inay dalkan imaadaan ay arkaan. waxaad maalin kasta aragtaan dhismooyinka horumarka dhaqaale ka sokow dhismooyinka constructionka dalka ka socdo. waxaa intaas oo dhan si dheer annaga marka waa nala dhaliili karaa, xukuumadda waa la dhaliili karaa. haddii la dhaliilo sidii waqtigii ra'iisul wasaare Khayre oo xukunka joogay oo dadka cayayaanka bulshada lagu soo fasaxayay ee 1,000 qof ama 2,000 oo qofood inay ku caayaan oo aanan lagugu jawaabin si mangal ah, annaga dadka macaynayno. haddii nala dhaliilo annagoonan shakhsiyadda iyo sharafta ra'iisul wasaarihii hore waxba ka sheegaynin ayaa waxaan taabanaynaa doodii uu keenay iyo warbixintii uu adeegsaday annagoo soo garab dhiganayna warbixin cilmiyeysan oo ma ahan inaan dowladda ay iska qortay ma aha. hay-adaha caalamiga qayb ka ah, World Bank report ay ku qoran tahay, IMF ay ku qoran tahay. horumarka maalgashiga markaan ka hadlaya shisheeye annaga xog aan qornay ma aha. hay-adda adduunyada ka qorta maalgashiga adduunyada ayay ku qoran tahay. 2021 maalgashiga meeshuu joogay waa gogol garayn kartaa 601 haddana meesha ay marayay 834 milyan
ayay joogtaa 9% ayuu kordhay qof kastoo Soomaaliyeed waa wuxuu ku farxo wuxuu ka naxi lahay ma aha qofka siyaasiga ah ee dawladda kaga aragti duwan waxaan rabnaa inaad na soo garab dhigatid doodii hore ee iska hadalka aan ahayn ee cilmiyeysan ee nambareysan ee annaga iyo qofka kale aan kuga arag duwannahay aan ku kala bixayno si cilmi iyo maangal iyo ay tahay aad iyo aadaan ugu mahad celinayaa dhammaan warbixintii marka Cabdalla Shideeyaha Cabdalla Shideeya waa taqaaniin Sooma warbixintii Cabdalla Shideeya waxaa la meel documentiska iyo baasaboorada fujiska laga helo warbixin sax ah oo World Bank-ga soo saaray ayaa si fujis ah oo aan xogteeda si qaldan loo ku gareey lagu soo bandhigay xukuumadda dan qaran way ka daba tagaysaa shacabkana waxaan u soo bandhigaynaa wax kasta oo dhaqaalaha horumar laga gaaray iyo nambaro ha noqoto GDP ha noqoto dakhliga qofka ha noqoto maalgashiga shisheeye ha noqoto dakhliga gudaha ha noqoto wax soo saarka beeraha ha noqoto qayb kasta ay noqoto nambaro oo aan lagu murmi karno cilmi iyo aqoon iyo shaqo la geliyo ayaan soo bandhigaynaa shacabka Soomaaliyeed waa ku mahadsan yihiin dhageysiga iyo inaan mar kastaba u adeegno taageerada dawladda u haysana waa idinka mahad celinaynaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh